howlgalkan oo ay soo wada jiro fulinayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa madowga Afrika amisoon gaar ahaan kuwa ka socda dalka Djibouti xubno ka tirsan maamulka degmada Jallaqsi iyo kuwa kale oo ka matalaya maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Jallaqsi iyo deegaanka Fiidow ee gobolka Hiiraan iyadoo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisoon ay howlgaladan ka sameeyeen deegaano fara badan iyo tuulooyin hoos yimaada magaalada Jallaqsi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmada Jallaqsi Faarax Aadan Gaafow gudoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Cabdulla Fiidow oo si wada jir warbaahinta ula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada magaalada Jallaqsi ciidamada dowladda iyo kuwa amisoon. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Aan u jirnaa howlgal ballaaran ciidamada Soomaaliya iyo kuwa amisoon Djibouti madaxdeennii iyo maamulkeennii iyo walaalkii Djibouti howlgalaan qaadnay Jimbiley iyo meesha la yiraahdo qurac jafle dergoos bulmudul iyo mow taasoo tuulo ayaa maanta howlgal aan ka haynaa madaxda waa la socotaa wufuudii gobolka ka timid gudoomiyaha degmada madaxii oo amisoon anigoo ah taliye ciidanka howlgaladaas aan maanta ku soconaa madaxii amisoon ciidamada amisoon oo degan Jallaqsi ugu sarreey iyo taliye ciidanka oo dowladda iyo anigoo gudoomiyihii degmada saakay markii waagu bariyay la jooga 2 subaxnimo ilaa saacada aan taaganahay 7 saac waxaan ku jirnaa howlgal nimanka oo nabadiidka hadda waa daanyar oo kale meel markii lagu sheego looma tago waxay gaadaan iyo dad ay baawar safar ay baawar ka dejiyaan iyo dad ay dhibaato hoose oo sidaas u tacaamulaan maayna niman meel oo loogu abaaro loogu tagaya maaha balse hadda waxaan ku jirnaa shaqadii oo noo qaaran mar alle markii howlahan shaqada howlaha ay dhamaato oo aan ku noqono magaaladii xaqiiqdii wixii aan helno oo soo qabanana sheegi doonaa waxaan waynana sheegi doonaa laakiin hadda howlgalkii aan ku jirnaa waxaan ka koobanahay baabuurta iyo gaadiidka adeerkiisii shaqada ay qabteen waa wax hortaada hadda waxaan joognaa meel baadiya yoomow qurac jafle saaka waxaan kusoo bilaabay Jubilee haddana waxaan ku soconaa magaaladii iyo agagaarkeeda. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan wadnaa shaqo aad madarata u fiican oo madarata u fiican degmada Jallaqsi joogno ciidankii nabadgelyada Djibouti magacayga waxa la yiraahdaa Sayid Jaafar Aadan oo salaamaya wadnankana wax badan ayaan u qabanaynaa dadka amna sugidda dhaqanka wax walba oo madarata deedagu ilaahay taga sokaysa madarata waajibada waan qabanaynaa insha Allah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو ليراحدو تليه سؤال محمد حسن. عيدا جرب جو وحويا عيدا كي قرن كصوماليات. وحنا كنت سياي جوتدا طبنات وأنا جو ولا شقية سوينا جا وحريت في عن نقد حي. طلبات وحنا سلامة يا مدحوينها إسماعيل عمر جيلي جنقالك زكريا شيخ إبراهيم كورنيل كينا لنا عن باتايون إلكات howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu cuslaa oo abad ciidamada dowladda maamulka degmada kuwa ka socda dalka Djibouti ee qaybta ka howlgalka amisoon maamulka gobolka Hiiraan ay ka sameeyaan qayb ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan iyadoo ciidamada dowladda inta howlgalka ay wadeen iyo kuwa amisoon aysan jirin wax iska caabin oo ay kala kulmeen dagaalyahanada al-shabaab waxaana ciidamada ay la wareegeen deegaano iyo tuulooyin fara badan oo hoosta magaalada Jallaqsi waxaana howlgalkan uu imaanaya xilli maalin ka hor diyaarada dagaal ay duqeeyeen deegaan qiyaastii 25 kiiloomitir u jira magaalada Jallaqsi ee gobolka Cabdishakuur Maxamed Xasan SAP TV baadiyaha fog ee Jallaqsi halka howlgalka uu ka socdo.